Fafahin dheeraad ayaa laga helayaa shil gaari oo galabtay ka dhacay duleedka magaalada Berbera kaas oo geystay khasaare isku jira dhimasho iyo dhaawac. Shilkan ayaa yimid kadib markay isku dhaceen gaari caasi ah sidoo kale gaari kale oo booyada. waxaana inta la xaqiijiyay shilkaasi ku dhintay hal qof halka 6 kalena ay ku dhaawacmeen. Meydka qofka ku dhintay shilkaasi iyo dadkii dhaawacaba ayaa la geeyay isbitaalka weyn ee magaalada Berbera. goobjoogayaashii ka agdhawaa halka uu shilkan ka dhacay ayaana warbaahinta uga waramay waxa ay indhooda ku arkeen. waxa weeyaan wixii marka qaraxii iyo bamti ayaan ku warhalnay waanu soo gaadhnay waanu soo gurmanay labadii baabuur oo isku jiifa oo mid walba ka kale ku jiifo isku baabay ayaan dadka soo gaadhnay oo soo gurmanay dadkii markaan soo gurmanay waxa dhacday in dadkii uu soo gurmanay oo aan meydkii iyo dhaawacii aan ka gurno baabuurtiina aan ka soo kala dhufno labadii baabuur sidaa daraadeed baan marka shacabkii ummadii ku hareereysnayd ee islaamka ahayd baa soo gurmaday wayna la gurmadeen sidii baan marka u kala labadii baabuur uga jiidnay daaqada aan furnay wixii dadkii ku jiifay meydkii wixii marka dhimashada ahaa nin qura wixii marka ahaa xaaladdu wallahi markii hore markii uu dhacay wallahi qof walba halkiisu murugo iyo magaranaysa warqabta iyo ka saaray iyo ka jiidan bay xaalad kale ka bacdi waxa weeye marka cagaf baan kaga jiidnay baabuurta cagaf yaan kala saaray dib baan ugu saarnay cagaf markii aan cagaftii ku saarnay ee aan cagaftii dib uga saarnay sidaas aan gaariga yaraa aan gacanta gaariga yaraa baska wixii ku jiray caruur iyo dumar baa dad family bay ahaan dadkii sidaan warku soo gaaray dad family bay wada boyadii iyo gaariga saas ugu jiifo marka aan laga saari karin boyadii cagafaan u keenay cagaftii baa u yara jiiday markaana gaariga aan ku soo toosnay gacanta marka saddex nin baa ku jiray gaariga ninka darawalka iyo ninka daaqada rakaabka saarnaa oo isaguna farta ku hashaadanay marka dama ka soo saarnay ninka darawalka waxba qabin oo ladna iyo ninka meeyay gaariga madaxa kaga jirtay stiikarka ka jeexay gaarigaba markii damana dadkii kala aanu saarnay dumar badan oo dhaawacaya dadkii guray baan kamid ahaa dumarka qaaday gaariga saaray ilaahay faldigiisa meesha marka dadka badankiisu dhaawacbay sidoo kale mas'uuliyiinta isbitaalka weyn ee magaalada Berbera ayaa iyaguna ka warbixiyay dhimashadii dhaawaca la soo gaariyay isbitaalka iyo sidoo kale xaaladooda guud waanu diyaar garownay isbitaal ahaan oo isbitaalka emergency response teamkiisii baan howlgelinay waxaana la soo gaarsiiyay oo isbitaalka guud ee Berbera la soo gaarsiiyay tiro 9 qof ah oo isugu jira rag iyo dumar iyo caruur tiro ahaan dhaawacyada ay kala qabaan dadkan 9 qof ee la soo gaarsiiyay waxay kala yihiin laba head injury ah oo dhaawac daran oo madax ah uu ka gaaray iyo 3 qof oo jajaba oo ay jajabeen waaxuhu iyo sidoo kale dhaawacyo iska fudud dhaawacyada badidood waxaan kula tacaalnay isbitaalka guud ee Berbera marka laga reebo labadaas head injury oo soo gaaray mooyaane inta kale waxay u baahan yihiin waxna laga qabanayaa isbitaalka guud ee Berbera labadaas waxay u baahan yihiin in si dhaqso ah loo gaarsiiyo ugu dhow Hargeysa neurosurgery soo la kulmaan dhakhaatiirta neurosurgery sidoo kale waxaana soo gaaray hal qof oo meyd ah kaas oo ah nin isagana waxaanu geynay qaybta meydka ma ahan markii ugu horeysay shilal noocan oo kale ay ka dhacaan deegaanada maamulka Soomaaliland iyadoo ay sidaan oo kale shilal noocan oo kale ay hore uga dhaceen duleedka magaalada Berbera kaas oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac hase yeeshee ciidamada taraafikada maamulka Soomaaliland ayaa marar fara badan sheegay in ay wax ka qaban doonaan gawaarida sida xawliga ku mara wadooyinka magaalada Berbera.